Assalaamu calaykum. Ciwaankeena maanta wuxuu ku saabsan yahay calaamadda 5 cudur oo halis ah. Dhakhtarka ilkaha ayaa ka digay maadaama afqalaylku uu noqon karo red flag ama calan cas. Afqalaylku wuxuu calaamad u noqon karaa tiro badan oo cudurro yaryar ah, laakiin dhakhtar khabiir ah ayaa daaha ka qaaday sababta ay mudan tahay in fiiro gaar ah loo yeesho. Wuxuu ka digay in ay calan cas u noqon karto 5 xaaladood oo halis ah oo dadka ay caqligal tahay in ay isha ku hayaan. Waxaa jiro sababo badan oo aad la kulmi karto afqalaylka. Wuxuu u noqon karaa calaamad quurada, sigaar cabista, daawooyinka qaarkood, ama cabista khamriga xad-dhaafka ah. Waxaa kale oo dhacdo in marka aynu da'da nahnay la soo saaro candhuuf yar, intaasiba waxay keeni karaan afka in uu qalayl noqdo. Si kastaba ha ahaatee, caafimaadka afka oo liita ayaa calan gaduudan u noqon karo cudurro nafta halis gelin kara. Afka qalalan ee joogtada ahi waxay calaamad u noqon kartaa in meel kale oo jirka ka mid ah ay wax ka qaldan yihiin, ayuu yidhi Dr. Azad Rumli. Magaciisa ma aqrin kare, sidaan ayuu u qoran yahay, oo madax ka ah shirkad gaar loo leeyahay ee Panin Dental Group. Dr. Azad ayaa sharxay, wuxuuna yidhi afqalaylku wuxuu calaamad u noqon karaa wax aan ku habboonayn meel kale. Tani waxay isku muujin kartaa calaamado ay ka mid yihiin dareen afdhegdheg ah, qallayl ama xanuun dhanka cunaha ah, sidoo kale in ay adkaato wax ruugidda ama wax liqidda, ama xitaa ur xooggan oo afka ka soo baxo. Xaaladaha caafimaad qaarkood sida istaroogga, sonkorowga ama macaanka, ama cudurka Alzheimerska waxay isku muujin karaan habkan, halka calaamadahani sidoo kale ay noqon karaan tilmaame xanuunka difaaca jirka sida HIV ama Sjögren syndrome. Waxa uu intaa ku daray, marka aad booqato dhakhtarka ilkaha, keliya ma ilaalinayo caafimaadka afkaaga, waxaana loo tababaray sida loo ogaado dhibaatooyinka ballaaran qaarkood ee caafimaadkaaga guud. Sidoo kale waa muhiim in aad si dhow isha ugu hayso caafimaadkaaga, iyo haddii aad isku aragto calaamadaha afka qalalan ee joogtada ah, marka waa in aad tan u muujisaa GP-gaaga, micnaha General Practitioner-ka ama dhakhtarkaaga. Xerostomia waa magaca loo bixiyey xaaladda ay qanjirrada candhuufta ku guuldareystaan in ay soo saaraan candhuuf ku filan si ay u qoyaan afka. Candhuuftu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa caafimaadka afkaaga, inkasta oo laga yaabo in aanan weligeen tixgelin muhiimaddeeda. Waxay ka caawisaa in ay baabi'iso aasidyada ay soo saarto bakteeriyada. Waxay sidoo kale nadiifisaa qaybaha cuntada. Waxaa kale oo ku jiro enzymes muhiim ah oo caawinaya habka dheefshiidka, hubinta iyo in jirkeennu helo fitamiinada iyo nafaqooyinka uu u baahan yahay, waxayna lagama maarmaan u tahay ka hortagga suuska ilkaha. Si aad u ilaaliso nadaafadda afka ee wanaagsan, waxaa lagu talinayaa in aad booqato dhakhtarka ilkaha 6dii biloodba mar. Dhanka kale, waxay khubaradu ku talinayaan in aad ilkahaaga ku cadaydo 2 daqiiqo daawooyinka cadayga oo ay ku jiraan fluoride 2 jeer maalintii. Sidoo kale, in si joogto ah loo cadeeyo iyo isticmaalka dhaqidda afka. Afka qalalan wuxuu u noqon karaa calaamad digniin ah: HIV, sonkorowga ama macaanka, cudurka Alzheimer's. Alzheimer's disease-ka waa xaalad maskaxeed taasoo si tartiib tartiib ah u korayso, waxayna keeni kartaa qalqal ku yimaado fikirka, garashada, luqadda iyo xasuusta. Midda kale oo xigta waxay tahay faliga ama stroke, sidoo kale cudurka Sjögren syndrome. Halkaasi ayuu inoo egyahay. Waxaa inoo balana ciwaanka xigo hadduu Alla idmo. Khayr badan.